kusoo dhawaada waraysi khaasoon la yeelanay boqorka guud ee Subeer Awal boqor Khadar oo ku sugan wadanka Jarmalka oo jecelahay in dhowr su'aalood ka weydiino xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka saaxil. Boqor waxa tahay boqorkii guud ee Subeer Awal sideed u aragtaa qorshaha guracan ee beela aan degenayn gobolka saaxil ay doonayaan inay ka samaystaan deegaano cusub? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو سلامي صحفي علي ولا أعبد ما سنتي سؤال شاي ويديسي أكو سابسن قبل الساحل عندن جوابتي إذا كسيو وحوي ورط أرن كسو أرن خلدا ضدك كسو دولي قبل كساحل هدوني إني ديغاميستان وحن وركا إني تاي خلد آدي وين تاسنا وحن نقول الساعة جستلنو oo dagaal sokayoon ba halka ka dhici kara markay qolo ku soo disho reer kale iyadoon deegaanku ahayn magac ahaan aan lahayn oo dadkii lahaa la og yahay taariikh qarni ilaa 1900 1800 ilaa 1700 dadkii deganaa la garanayo inay maanta reer marti ku ah xaafad yar marti ku ah inay u hanqal taagaan oo yiraahdaan gobolka saaxil baan u qabsanaa ama maayarka noqonayna waxaan arkaa khalad weyn aad weyn taasna waan istilnoon bay noqonaysaa insha Allah anoo kabayay sii raacinaya abwaankii Ali Jaamic Habil uu ku cadeeyay maansayro halkaa uu ka tiriyay baan doonayaan dadka inaan tusaaleeyo maansada berbera maalintuu malagu soo jeexay midigta Subeer buu ku dhacay malabkii doocaane gaaladii Mooska iyo haddii mililig la keeno Ingiriis madaafiicdii hadduu nagu mileeyo Subeer oon aan la marin saaxil oon meesha laga waayin nin madow xeebta hadduu maro ka soo qaato abtirsiimadii muran gashay manidii Habiile. وهاجاج سؤال الله برضه حوي سيدي أيو سبير أولو إلى عشان يا حتى جانا دي إلهي كوب عراي su-aasha labaad waxa weeye deegaanadooda waxay ku ilaashan karaan Subeer Awal iyagoo midnimadooda xoojiya gacan kaliya noqda ra'yi kaliya wada noqda oo isku duubnaada oo meelaha daldaloolka ah ee cadowga soo galayna iska ooda oo hadday tahay deegaanna iyagu deegaamaystaan oo hadday warshada ka samaystaan shaqa abuur ka beeraan ee ku sameeyaan iyagu isku tashadaan midnimadooda iyo qarannimadooda ina ilaashadaan taasay ku gaari karaan waa tahay boqor ugu dambeyntii Subeer Awal talada aad siinaysaa maxay tahay maadaama tahay boqorkii guud ee Subeer Awal taladan siinayo Subeer Awal maadaama aan ahay boqorkii Subeer Awal taladan aan soo jeedinayaa waxa weeye inay Subeer Awal meel walba joogaan ay ogaadaan midnimadooda meel walba Subeer Awal joogaan daafaca calanka qurba joog ha noqdaan qaran joog ha noqdaan inay isku duubnaadaan fikriyan iyo aqliyan iyo maskaxiyanba ay ka midoobaan iyagoo cudud kaliyaana ay hawsha ay baartay qabtaan kuwa soo hungureynaya uu ka mid yahay ninka Xirsi Gaab la yiraahdo oo isagu ku ah barmadow ku ah Somalilandna ninkaana jawaab degdega ay ka siiyaan ay ka falceliyaan khudbadii uu ka jeediyay berbera dhexeeda isagoo leh maayar bank haddii la doorto maayarka berberaan bedelayo oo barjaclan ka dhigaya anoo arkaya odaga Xirsi Gaab ee bila aqliga ah bila garashada leh bila aqliga leh bila garashada la ee shayna la baray odaga siirayo noo keenay inuu maanta ku xididaysto intuu Hargeysa saddex taago inuu maanta u hanqal taago inuu berbera u hanteeyo taana waxa weeye haddaad wax isleedahay hanti horta waa riyo markuu qofku riyoodana waxaa ka horeysa inuu seexdo taasaan odhanaya Xirsi horena waan u yidhi isbiirkayga hore Xirsi waxay noqonaysaa xabaashiisa lagu aasi doono isaga iyo inta la midkaaba hadday tahay buurmadow hadday tahay afarta ama ibtisaame garka caws kale hadday tahay kan dahabshiil la sheegay dhigshiil inta habar jecel ku hamiyadigaysa inay berbera gacanta ku dhigtana waxay noqon doontaa xabaashooda taa ha ku cabaan baan leeyahay aad ba ku sameeyay